wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Xoos Jibriil ayaa maanta Muqdisho ka daafuray madasha ka qaybgalka dadweynaha isla jaanqaadida dib u eegista dastuurka iyo doorashooyinka ee tubta siyaasadda loo dhan yahay. madashan waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliimo Yarey, xisbiyada sida gaarka loo diiwaan geliyay ururada bulshada rayidka qaybihiisa kala duwan ee ku nool gobolka Banaadir iyo qaybaha kale ee dalka ayaa sidaas oo kale munaasabada goobjoog ahaa. intii ay socotay madashan ayaa dadkii ka qayb galay waxay su'aalo ku saabsan aragtidooda ay weydiinayeen mas'uuliyiintii fadhisay qaybta shirgudoonka ee kulanka madasha ka qaybgalka dadweynaha isla jaanqaadida dib u eegista dastuurka iyo doorashooyinka ee tubta siyaasadda loo dhan yahay. wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka Cabdi Xoos Jibriil oo munaasabada daafuray ayaa sheegay in arintan ay u gal leeyihiin sidii isku fahmi lahaayeen bulshada isla markaasna loo gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah. aan ka wadaarayaa arintii ahayd inaan galnaa shuruucdii doorashooyinka iyo xisbiyadii iyo electoral modelkii inaan dib u dhignay maadaama wasiirka arrimaha gudaha uu naga codsaday inaan wada tashi gelino aan si joint usoo sameyno xaliiman markaas waa casimi doonaa maybe toban bari gudaheeda camal inaan kaa soo qabanaa markaas waxaan u gelinaa si oo hoose ayaan u geli doonaa. waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waa mahadsantihiin shirkan waa noo xelaya. thank you. cutubka labaad ku jira waxaa waaye xuquuqda dadka inay urur isugu imaan karaan. muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku biiraa ururku rabo freedom association. markaas wuxuu leeyahay laakiin xuquuqdaas waxaa ka mid ah inuusan ku biirin ururka yani choiceka qofka la siinayo. haddaan rabtana waxaad ku biiraysaa urur ama xisbi, haddaan rabtana xisbi ma gelaysa. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliimo Yarey ayaa su'aalo waxaa laga weydiiyay arrimaha quseeya doorashooyinka. manhajkaas oo aan kala tashanayna markii hore qodobada waa la isla wada qaatay xisbiyada dowlad goboleedyada ururada bulshada kulli qodobada uu ka koobnaanayo sida uu noqonayo 3 khubaro Soomaaliya aan u sameynay manhajkii la diyaariyay asaga hadda la isla fiirina. marka wasiir Xoosh waa mahadsantahay anigu waan casuumi kartiin laakiin wax ma wada diyaarin karno mana idin kala qayb gali karno. sidaas oo kale dadkii ka qayb galay munaasabadan ayaa su'aalo kulul waxay weydiiyeen dadkii goobjoog u ahaa waxayna sheegeen in doorashada baarlamaankii 10aad ee lagu soo doortay ay ahayd kuwa qaldan halka kuwa kalena ay sheegeen in ay guddiga doorashooyinka si cadaalad ah u qabteen. waxaa lagu tilmaami karaa inay doorasho musuq iyo lacag iyo xoog iyo awood maaragtay la geliyay. maanta waxa baarlamaanka waa dadku Soomaalidu dad fiican waa iska samreen waxay ku samreen in waxaas kuna iska socdaan waxay keentay marka maanta in baarlamaanku dhaqaaqo waay waxay keentay baarlamaanku inuu waxba qaban waay. suurtagal ma tahay toodii haddii la soo ururiyo kale waa u tagtaan mar walba inaynu inaga laftigeenu kuway hayaan iyagoo ay tahay inaynu tixgelin yar laga siinayo la eegayo si u shaqeynaya laakiin ururkan way dhamaystir matala waxa uu soo seexay uu soo qorayna male sidee lagu keenay maadaama 135 lagu qaybsaday xildhibaano lagu qaybsaday sidee ku yimid 135 odayaal ka mid ah waa la dilaa waa dhaca waa wax walba la yeelaa badee maanta ka mid ma aha wax inuu soo qol male. xisbiyada siyaasadda cod ayay raadinayaan codku ah fahmaan aniga ilmahayga saaxiibadayda dariskayga asxaabtayda xitaa baska markaan saaran intaan beelka ka degaayo markaan maqaayada waxsheega maxaa ku mashquulsanaa aniga waxa aan rabo bulshada inaan ka dhaadhiciyo kana galo sida ay u danadeen asraar kala gadaan halowdii intii ay goorgoorta ka gaara dadka naafada iyo howlahooda iyo bulshada guudba u soo jeesta ku dara structure-kiina ku dara shuruucdiina ha muuqato. arrimahan oo dhan ayaa imaanaya xilli maantay Muqdisho laga daafuray madasha ka qaybgalka dadweynaha isla jaanqaadida dib u eegista dastuurka iyo doorashooyinka ee tubta siyaasadda loo dhan yahay oo 2 maalin Muqdisho ka dhici doona bari ayaa la filayaa in lagu soo gabagabeeyo. Cabdikariin Shadane, Jubbaland TV, Muqdisho.